ku socoto qaybta maamulka maaliyadda dawladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir ku socoto waaxda caafimaadka dawladda hoose xamar ku socoto taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar ku socoto taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir og waaxda gaadiidka dawladda hoose xamar og waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir og xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ujeedo hirgelinta go'aanada ganaaxa ku saabsan ee afxirashada COVID-19 kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa loogu hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka dilaaga ee COVID-19 iyadoo sidoo kale ay socoto wacyigelinta uu maamulka gobolka Banaadir ka sameynayo 17 degmo ee gobolka Banaadir kulankan oo muddo saacadaha socday waxaa la isla qaatay in la hirgeliyo qaadashada afxirka face mask cid allaala iyo ciddii u hoggaansami weysana waxaa laga qaadi doonaa tallaabooyinkan hoos ku xusan qodobka koowaad ganaax dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka Banaadir mar waliba ay ka soo baxayaan guryahooda waxaa la farayaa inay xirtaan afxirka face mask cid allaala ciddii aan xiran waxaa la ganaaxayaa ganaax lacageed oo dhan $5 lacagtaasi ganaaxa waxa uu bixinayaa goobta lagu qabtay haddii uu bixin waayana waxaa la geenayaa saldhigga booliska ee ugu soo horeeya goobaha ganacsiga iyo meheradaha kale ee la sugu yimaado cid allaala iyo ciddii soo gasha afxirasho la'aan waxaa la ganaaxayaa milkiilaha meheradaasi waxaana qofkiiba lagu ganaaxayaa inuu bixiyo lacag dhan $50 qodobka labaad fulinta awaamiirta sare ku xusan waxaa u xil saaran hay-adaha iyo xafiisyada sare ku xusan waxaana laga doonayaa in ay u fuliyaan awaamiirtani sida ay tahay qodobka saddexaad dhaqangalka awaamiirtani fulinta awaamiirtani waxa uu dhaqangalayaa markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waana uu saxiixay maasanadiin